raalli akaado duqeyda kale odayaasha cuqaasha siyaasiyiinta bulshada rayidka iyo talweynaha iyo dhalinyarada meesha fadhida mar labaad waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu inta wixii ka dambeeya waxaan hambalyo kaliya laaba u dirayaa hogaamiyaha hiraalka qaran leh ee maanta loo calaama saaray inuu noqdo ninka shanta sano ee soo socota laylinaya dalka mudane muuse biixi cabdi iyo murashaxa iyo madaxweyne ku-xigeenka oo mar labaad dib loo boqoray cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici waxaan leeyahay marka koowaad xilka ilaahay idinku asturo intaa wixii ka dambeeya waxaan anu aaminsanahay maanta haddii hogaamiye muuse biixi la doortay inay imanayso xukuumad tayo leh oo dadka iyo dalkaba u adeegta waxaan aaminsanahay inuu sharcigu sarrayn doono waxaan aaminsanahay inuu hogaamiye ka midha dhalin kara yahay hiraalkii ummaddu beegsanaysay ilaahay waxaan uga baryayaa in hagardaamooyinka iyo wixii dhibaato qaranka ku aba uu u sahlo inuu xalliyo dhibaatooyinkan iminka jirana waa hogaamin xumo darteed ka timid dhinacii inala loolamaysay sidaa daraaddeed iyadoona way dhammaanaysaa waxaan ilaahay uga baryayaa inuu xilka ku asturo marka hore madasha khayrka badan la isku keenay dhammaan mar sharaf halkan isku timiday iyo inta kale hadalka halkan codkan maqli doontaba waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa kadib waxa la goor gaaban hadalkeedna maanta wuxuu xambaarsan yahay dhawaaqadii shalay komishinka qaranka doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku dhawaaqeen kala helidii tartankii 13 bishii 11 dhacay ee jamhuuriyadda Soomaaliland loogu tartamayay madaxtooyada dhawaaqii shalay lagu dhawaaqay umbriyahanba ka dhur sugaynay waynu diyaar u ahayn ciddii guulaysata inaan halbariyayno hambalyadeena maanta waa hordhac weeye xafladii iyo umuurihii way dambayn doonaan laakiin maanta waxa weeye waa hambalyo hordhaca waxaan ka hambalyeynaa runtii sidii duqeydii hortay iga horreysay u sheegtay salaadiintii oo qaasha lahayd aqoonyahanka siyaasiga lahayd qurbajooga sida mugee miisaan kale runtii u soo gurmaday oo in badan halkan hadda fadhido lahayd dhalinyaradii runtii 12 hoggaanka ka ahayd ee halkan fadhiday oo iyaguna xafladooda dambayso waxa halkan maanta la isku yimid kaliya waxa weeye in la hambaliyeeyo in loo duceeyo in lala dardaarmo haddii la yiraahdo labada mas'uul ee maanta xilka madaxweynaha kala qabtay mudane muuse biixi cabdi iyo cabdiraxmaan saylici oo runtii ku guuleystay si mug iyo miisaan leh oo cadadina qarin karay runtii u guuleystay ayaan halkan hambaliyadooda maanta aanu joognaa waxaan leenahay hambalyo marka xiga waxaan leenahay xilka Allah inagu asturo waxa weeye xil ballaaran baa ilaahay ni saaray waxa weeye bulshadii reer Soomaaliland ay dooratay waxaan leenahay xilka layni dhibana waxaan leenahay Allah inagu asturo dhammaan sida horeba loo sheegay ummadda reer Soomaaliland meesha joogtaba ha ahaatee iyo cid kasta oo area dalka wax ku taasoo gashaba waxa weeye mas'uuliyadeeda maanta inagu wareegtay waxaan leenahay xilka Allah inagu asturaan xilka leenahay waxaan aad iyo aad u hambalyeynaa runtii komishinka qaranka oo si mug iyo miisaan leh oo xilkaasniba ku jirto oo dadniba ku jirto arinta ayada uga soo dabaashay todobada komishinka qaranka iyagana waxaan leeyahay aad iyo aad baan ni bogaadinaynaa xilkiini waad gudateena waxa weeye miisaanka xasanaadka Allah inagu daran leenahay xisbiyada qaranka ee tartanka runtii ku jiray ee tartan fiican u tartamayay ee ogolaaday in maanta uu helay xisbiga kulmiye iyo labada musharax ee mudan muuse biixi cabdi iyo cabdiraxmaan saylicina ku hambalyeeyeen iyagana aad iyo aad baan ni bogaadinaynaa waxay xafladii way noo dambeeyaan waxa weeye duqeyda iyo qurbajooga iyo aqoonyahanka halkaas ku yimiday maanta waxay arintoodu ahayd in ay intan ay sii sheegaan bay ahayd runtii wixii kalena way noo dambeeyaa xafladaha waa dalka dhan ka dhici doona ayaa dhici doona aad iyo aad baan runtii aan ni bogaadinayaa aad baan ni soo dhaweynayaa xilka Allah inagu asturo qof kasta waxaan ku dardaarmayaa runtii xilka la saaray in dhammaan ummadda reer Soomaaliland meesha doonta joogteen inay ku garab gasho sidaan horumar iyo waxba u gaadhno midnimo biyo kama dhibcaano caalamkii maanta inaan fariin u dirnay inay soo jeesteen in saan doorashada u galay iyo qaabkan isku aqbalay iyo sidaan u dhaqaaqnayba ay farxad badan umada gelinaysaana waa biyo kama dhibca weey waxaan rajaynaynaa waxaanu sugaynay inaynu helno waxaan sugaynaa barwaaqo iyo diinteena islaamnimada aad u xajisano waxaan sugaynaa itiraaf iyo wanaag badan ma sugaynaa waxaan rajaynaynaa waa markii waa madaxweynihii shanaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan filayaa tirada madaxweynaha qaan gaadhay in haddii alla yiraahdo iyaduna ay soo garanaysaa loo heli doono garanaysaa itiraafkii iyo soo dhaweyntii
lixdankii dal ee goobjoogash ka yimaadeen iyo caalamkii kalena inayna soo dhoweyn waynu wada ognahay waxa weeyaan saas iyo